ونعبها كوة ظلمي فالكيا وانا جعلها كوة للظلميو noo jawaaba Erdogan waa kan isagoo wax nabaraya waa madaxa masuqan iyo maamul taag daran Turkiga ayuu madaxweyne ka yahay magaciisuna waa Erdogan waxaan leeyahay Erdogan oo gudbay waxaan waajib ku ah in uu cudurdaar sameeyo maadsanid mudane madaxweyne sharaf ayay noo tahay in aan kula joogno mahadsanid Erdogan waa siyaasiga labaad ee ugu taajirsan adduunka داعم لأردوغان سادة طيب أردوغان Recep Tayyip Erdogan korkmak yaraşmaz cabsidu naguma habboona baqdintuna nooma cuntanto waxaan noqon doonaa kuwa cabsida qudheedu ay ka cabsato dadka qaarkii waxa ay u arkaan inuu yahay ninka hindisay horumarka Turkiga casriga ah hogaamiyey ku dayasho mudan iyo siyaasi guulaystay kuwa kalena waxa ay ku tilmaamaan keligitalis waxa ayna u arkaan inuu gobolka uga halis badan yahay Israa'iil waa ciyaaryahanka waddankiisa ku duway tubta dhaqaalaha ugu xoog badan adduunka waana madaxweynaha aan weligiis ku guuldareysan doorashooyin dimuqraadi ah çocukluğumda hatırlayın xusuusta markii aan yaraa Erdogan waxa uu ku dhashay sanadkii 1956 degmada saboolka ah ee Qaasim Baasha ee magaalada Istanbul intii uu yaraa waxa uu gadi jiray qare ama xabxab iyo rooti si uu caawiyo aabihiis waxa uu ka baxay dugsiga sare ee Istanbul ee imaamyada iyo afyahanka sanadkii 1973 kadibna waxa uu galay kulliyadda culumta dhaqaalaha iyo ganacsiga ee jaamacadda Marmara caruurnimo sabool ah halgan dadweyne duruus diini ah iyo kuwa kale oo la xiriiray cilmiga dhaqaalaha ee casriga ah kuwaas ayaa ahaa iskulaarankii sixirka ahaa ee sameeyay qof noqon doona maalmaha soo socda hogaamiyaha shacabka ee uusan jirin Turkiga oo dhan hogaamiye u dhigma balse hal wax ayaa nusqaaminayay waana fanka la xifaaltanka qofka aad isaysaan waa fanka kabtan Erdogan si dhaqsi ah ugu heli doono guulo kaas oo ka soo bilowday garoomada kubadda cagta sanadkii 1976 ayuu diiday Erdogan soo jeedin ku saabsan inuu ku biiro kooxda weyn ee Fanar Bahja ujeedkuna waxa uu ahaa inuu raali geliyo aabihii waa hibo aan ku xoogaysan karin garoomada kubadda cagta balse awood ku yeelan karta garoon ka weyn oo ah garoonka siyaasadda البدايات waxaa jiro maalmo ay ku socdaan riyooyinka sare ayna ku dumaan buushash iyo guryo waxaa jiro maalmo la moodo bilowga soo bixitaanka kuwaas oo isu roga subax dilaacay kadibna lagu furanayo Istanbul waqtigu waxa uu laabanayaa bog ka mid ah boggiisa si uu u furo mid ka xiga Erdogan waxa uu xilli hore ku degdegay ku biiridda xisbigii Assalaama Alwadani kadibna waxa uu ku biiray xisbiga Rafaah kaas oo uu madax ka noqday faraciisa Istanbul kadib xisbiga Rafaahna waxa uu ku biiray xisbigii Fadila waxa ay ahaayeen xisbiye islaami ah oo uu dhammaantood hogaaminayay Najmuddin Erbakan waxaana si uu isku raacay mamnuucay ciidanka xoogga dalka رئيس بلدية اسطنبول الكبرى ma qabsanayno fogaan gaaban socdaalkeena maratoonku ma lahan dhammaad sanadkii 1994 ayuu noqday Erdogan gudoomiyaha dawladda hoose ee Istanbul magaalada weyn ee leh ballaceeda iyo dhibaatooyinkeeda waxaan ugu soconaa jidkeena dhiiqada badan si xiiso iyo rabitaan leh waxaan sheegnay in jidkani yahay mid dheer oo dhib badan waxa kale oo aan sheegnay in aan ugu socon doono si aan daal iyo taagdaro lahayn sidaas ayaana samaynay Erdogan waxa uu u rogay Istanbul waliba si degdeg ah oo la yaab leh waxa ay ahayd magaalada ay ku yaalaan meelaha ugu waaweyn ee qashinku yaal adduunka oo dhan balse waxa uu ka dhigay mid kamid ah magaalooyinka ugu qurxoon adduunka Russia ayuu ka soo dhoofsaday gaas kadibna waxa uu xal u helay dhibaatadii wasaqowga oo ka dhalan jirtay dhuxusha wax lagu karsado waxa uu dhisay mid kamid ah meelaha ugu casrisan ee lagu basariyo ama lagu maareeyo qashinka sidaasna waxa ku dhamaaday dhibaatadii dukaafada ama qashinka si aan soo noqosho lahayn waxa uu si adag u dhisay 6 biyo xireen oo waaweyn waxa uuna taagay shabakad tubooyin ah oo aad u ballaaran si biyaha la cabo ay u gaaraan guri walba oo ku yaala Istanbul waxa uu dhisay in ka badan 50 buundo ama bridge meelo furan oo la maro iyo jidad si dhaqsi ah lagu socon karo si uu u xalliyo dhibaatadii ka taagnayd isu socodka iyo gaadiidka waliba si weyn waxaas oo dhan waxa dheeraa dawladda hoose ee Istanbul waxa ay gacanta ku dhigtay xilligiisii faa'iido badan oo kor u dhaaftay 4 bilyan oo dollar iyada oo lagu lahaa dayn ka badan 2 bilyan oo dollar waa 4 bilyan oo dollar iyo 4 sano gudahood oo uu sameeyay Erdogan waxay kari waayeen kuwa kale muddo 40 sano ah hawshii waa lagu guulaystay mucjisadiina waa dhabowday waxaana soo muuqatay in jidkiisu noqday mid u diyaarsan noqoshada madaxa xukuumadda balse dhowr tuduc oo ka mid ah gabay ayaa ku filnaatay inay joojiso socdaalka
Camiler kışlamız, müminler asker. allahu akbar Bir şey bizi sindiremez. erdogan xabsiga ayaa la dhigay markii uu mariyey tixdaas iyada oo ilaaladii atator ay ka dambeeyeen xariggaas sannadkii 1997 iyada oo lagu eedeeyey inuu cilmaaniyadda cadaawad u hayo كسر الجدار. aniga ayaa idiin ballan qaaday in aan dhammaystiro hawshayda inta aan ku jira xabsiga 4 bil ayuu xabsiga ku jiray isaga oo 4taas bil gudahood dib u eegis ku sameeyey dhammaan tijaabada waxa uu go'aansaday inay lama huraan tahay in derbiga la jebiyo lana dhiso aragti cusub waxa uu xabsigii ka soo baxay sannadkii 1998 si uu uga tago macallinkiisii hore ee arbakaan una dhiso xisbigiisa cusub ee cadaaladda iyo horumarka waa xisbi loo qadari doono inuusan ku guuldarraysan doorasho walba oo uu galo laga soo bilaabo markii uu talada qabtay sannadkii 2002 إردوغان الزعيم حصاد الإنجازات. erdogan waxa uu noqday ra'iisul wasaare sannadkii 2003 waxa uuna bilaabay dhismaha turkiga casriga ah iyada oo loo marayo habka cuthmaaniyiintii hore turkiga atatorka ee ka leexiyey wejigiisa haysashadiisii islaamka ayaa erdogan ku soo celiyey inuu u jihaysto bari si uu ugu fidiyo awooddiisa gudaha juqraafiyadda muslimka ah isaga oo adeegsanaya awooddiisa jilcan isla markaana taageeraya arrimaha muslimiinta Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisi. mudane trump qudus waa qadka cas marka loo eego muslimiinta hal daqiiqo sug hal daqiiqo sug suuragal maahan hal daqiiqo isug hal daqiiqo isug waxaan si fiican u ogahay sidii aad carruurta ugu disheen xeebaha khaza hadda iyo wixii ka dambeeya daafos waa iiga dhammaatay mar dambe kuma soo noqonayo dadaalka erdogan waa caddaa waxa uu ahaa dhismaha xidhiirka turkiga si waafaqsan siyaasadda dhibaatala'aanta ee turkiga 2005 ayay u suura gashay inuu bilaabo wadahadalladii kubiiridda midowda yurub turkigu ma aha buundo ama biriij isku xidha bariga iyo galbeedka oo keli ah balse waxa uu noqday lambar culus marka la joogo galbeedka iyo awood miisaanta bariga erdogan waxa uu dhisay dhaqaale awood badan oo turkigu leeyahay muddo 13 sano oo uu xukunka hayo gudahood ah waxaa kordhay xajmiga ganacsiga isaga oo ka yimid 250 bilyan gaarayna 840 bilyan waxaa labalaabmay dhaqaalaha soo gala dadka caadiga ah wax ka badan 3 goor waxa uu gaaray 11 sannadkii waxaa kor u kacay mushaarka 300% miisaaniyadda waxbarashada iyo caafimaadka ayaa ka sara martay miisaaniyadda difaaca waxaa hoos u dhacay tirada shaqala'aanta iyada oo gaartay 2% waxaa sare u kacay badeecooyinka turkigu u dhoofiyo adduunka intiisa kale halkii badeecooyinkaasi ay ka ahaayeen 23 bilyan oo dollar waxa ay noqdeen 153 bilyan oo dollar sidaas oo kale turkigu waxa uu iska bixiyey dhammaan deymihii uu ku lahaa sanduuqa lacagta adduunka waxa uuna turkigu deymiyey IMF lacag dhan 5 bilyan oo dollar kaydka bangiga dhexe ee lacagta ayaa gaaray 114 bilyan halka uusan dhaafi jirin 27 bilyan sannadkii 2002 sidaas oo kale waxaa kor u kacay kaydka dahabka isaga oo gaaray 135.5 bilyan oo dollar sidaas ayuuna turkigu ku galay xilliga dayib rajab erdogan 20ka waddan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan waxa ay ahayd libin aad u badan iyo guulo ka yaabiya saaxiibada isla markaana ka caraysiiya cadowga markan hogaamiyaha waxba uma harin marka laga reebo ciidanka xoogga dalka ee ku jira guriga siyaasadda ee turkiga dharbaaxadii ugu horraysay ee ka dhan ah erdogan waxa ay ahayd intii u dhexaysay 2011 ilaa 2013 isaga oo xabsiga dhigay boqolaal ka tirsan ciidanka oo ay ka mid ahaayeen kuwa ku lug lahaa afgembiye hore ama kuwa dadaal ugu jiray inay qorsheeyaan inqilaabyo cusub intii uu ku jiray furfuridda guntimaha ay ciidanku xidheen ayuu u wareegay xal u helidda mid ka mid ah mashaakilka ugu adag ee turkiga sannadkii 2012 isaga oo bilaabay hawsha nabadda ee kurdiyiinta bidixda jira kadib dagaal taagnaa muddo 30 sano ah Kimse Kürtlere devlet ha raadinina waddan ay kurdiyiintu leeyihiin jamhuuriyadda turkiga ayaa ah waddankooda nabadgelyo gudaha iyo dibadda ah koritaanka dhaqaale ballaaran tala wadaag ku socda tallaabooyin sal adag leh iyo midowga yurub oo urdaha taagan ayaa ah guulaha balse weliba si aan digniin hore lahayn ayaa wax walba bilaabeen inay isku dhex yaacaan في عنق الزجاجة. turkigu si tartiib tartiib ah ayuu u waayey haysashadiisii islaamka iyada oo ay dameen kacdoonnadii guga carabtu una dilaacaan dhibaatooyinkiisa guduhu sannadkii 2013 ayuu qarxay bannaanbax ka dhan ah xukuumadda erdogan kaasoo ka soo bilowday beerta gize bark
ee barxadda taqsiime caanka ah waxa uu ahaa bannaanbax gaaray meelo badan oo kala duwan oo ka tirsan turkiga iyada oo booliisku uga hortegay awood dibadbaxaasi waxa uu ka tegey dhimashada 4 ka mid a bannaanbaxayaasha iyo 7 ka mida booliiska bannaanbaxyadaasi ma ahayn kuwa sababay qalqalka hiigsiga turkiga dhibaatadu waxa ay ka soo bilaabatay kadib markii turkigu xidhiirka u gaabiyey maamulka bashaar al asad iyo gaashaanbuurtii ka dambaysay isla markaana doortay inuu taageero lana jiro kacdoomayaasha siiriya dhibaatadu waxa ay sii dhabaqday markii xidhiirka turkiga iyo ruushka xumaaday kadibna turkigu soo riday diyaaraddii militariga ee ruushka sannadkii 2015 sidaas oo kale waxaa cakirmay xidhiirkii turkiga iyo maraykanka iyada oo sababtu ahayd maraykanka oo doortay inuu taageero kurdiyiinta suuriya waxa ay ka sii dartay hawshu markii wadahadalladii ku biiritaanka midowda yurub ay ku tageen darbi xidhan waxaa soo muuqatay in siyaasadda dhibaatala'aanta ee turkigu ay meel walba kala timid dhibaatooyin waxaa burburay hawshii nabadgelyada ee kurdiyiinta sannadkii 2015 waxaana dib u soo noqday howlihii argagixisada oo galaaftay nolosha 500 oo qof muddo 2 sano ah ciidanka turkiga ayaa galay dagaal qaraar oo ka dhex dhacay magaalooyinka isaga oo cagta mariyey deegaanada ay kurdiyiintu ku badan yihiin dhaqaalihii ayaa dib u noqday waxaana hoos u dhacay tiradii dalxiisayaasha halkii uu dalxiisku ka ahaa 42 milyan sannadkii 2014 waxa uu noqday 25 milyan sannadkii 2016 lacagta liiraha turkiga ayaa lumisay 60% qiimaheeda muddo 7 sano gudahood ah waxa ay ahaayeen dhibaatooyin dhaqaale iyo kuwa siyaasadeed oo bilow ah waxaana ugu caansanaa hardankii dhex maray Erdogan iyo saaxiibkiisii hore ee Fadxalla Gol si Fadxalla u bilaabay eedaha musuqmaasuq gaaray Erdogan wiilkiisa Bilaal iyo xubno ka mid ah xukuumaddiisa kuwaas oo ku dhammaaday dhibaatadii weyneed ciidamada qalabka sida ayaa qabsaday dawladda kaftan maaha makaa dhabbaa haa waa iga dhab aad gurigaagii gaadiidka gaashaaman ayaa buuxiyey jidadka bartamaha sannadkii 2016 ujeedku waxa uu ahaa madaxa Erdogan askartu waxa ay u ballan qaadeen dadweynaha turkiga xorriyad balse waxa ay ahayd xorriyad ku hoos jirta hanjabaadda hubka kumanaan dadweyne ah ayaa u soo degay waddooyinka waxa ay hareereeyeen dabaabadihii waxa ayna soo qabqabteen askartii waxa ayba fashiliyeen afgembigii ha murgin rabbi ayaa nala jira Erdogan waxa uu ka soo baxay ciriiriga halista geliyey balse bog cusub ayaa bilaabmay يد من حديد Erdogan waxaa hor yaal cillad aad halis u ah unug si qarsoodi ah u samaysmay oo ka kooban 100,000 oo ka dhex samaysmay siyaasadda iyo ciidanka ayaa jiray dawladdii kadibna waxa uu soo dhaqaajiyey ciidankii xoogga dalka isaga oo ku dhex shaqaystay wadnaha xukunka kadibna waxa uu qalqaliyey hannaankii tala wadaagga isaga oo adeegsanaya awoodda hubka dhaqaaqa jawaabta ah ee Erdogan ayaa u yimid si dhaqsi ah oo go'aan adag ah taasina waxay u keentay Erdogan dhaleecayn aad u ballaaran Erdogan waxa uu shaaciyey xaalad degdeg ah oo uu dalka oo dhan geliyey waxa uu xabsiga dhigay 50,000 oo askari in ka badan 110,000 oo qof ayuu ka saaray shaqooyinkoodii iyada oo lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ururka Golan xarigu waxa uu gaaray 13 xildhibaan oo kurdiyiin ah oo loo haysto eed la xiriirta argagixisanimo sidaas oo kale 10 suxufiyiin ah ayaa xabsiga la dhigay iyada oo lala xiriiriyey ururka Mawazi waxa ayna arrintu gaartay in turkigu kaalinta koowaad ka galo dhinaca xarigga iyo qabqabashada bishii Abriil 2017 Erdogan waxa uu suurto gashay inuu wax ka beddel ku sameeyo nidaamka dawladnimada dalka halkii uu ka ahaa nidaam ra'iisul wasaaruhu ilaa xad awood leeyahay waxa uu u rogay nidaamka madaxtooyada isaga oo tallaabadaasna u maray afti dadweyne waa nidaam inta badan awoodaha gacanta u gelinaya madaxweynaha الرئيس إردوغان طيب Erdogan waxa uu sanadkii 2018 ku guulaystay doorashooyinkii ugu horreeyey kadib hirgelinta nidaamka madaxtooyada ha yeeshee waxa kala fogaaday masaafadii u dhaxaysay isaga iyo labadiisa saaxiib ee adag Cabdalla Gol iyo Ahmed Daoud Ogl balse iyada oo ay sidaas tahay ayay u suura gashay dib u soo celinta xasiloonidii iyo dhaqaalihii turkiga koriinkii dhaqaaluhuna waxa uu ku soo laabtay sidiisii hore iyada oo dalxiisayaashiina ay dib ugu soo qulquleen Istanbul oo kulaasha Yurub mashaariicii waaweyneed ayaa iyana halkeedii dib ugu soo noqotay Bugün biz sadece bir havalimanı değil, aslında bir zafer. innagu maanta ma dhisayno oo keliya garoon sida muuqata waxaan joogtaynaynaa guul إردوغان بين روايتين dad badan oo dhaliila Erdogan waxa ay ku eedeeyaan inuu yahay nin la isu soo diray oo keligii talis ah iyaga oo daliishanaya hadal uu hadda ka hor jeediyey Bize göre demokrasi
hiçbir zaman dimuqraadiyaddu ma ahan inay noqoto ujeedka la higsanayo haddii aan arrinkan ka istaagno dhinaca cilmiga waxaan ogaanaynaa in ay tahay waddo la maro waxaa suuragal ah in waxa ay ku tuhumayaan ay leeyihiin wejiyo muujiya sawirrada Erdogan waxa ay buuxiyeen jidadka Turkiga waana muuqaallo aanay suuragal ahayn inaad ku aragto dimuqraadiyadda Yurub balse waa kala fog yihiin nin dhisay dalkiisa iyo mid kale oo burburiyey kadibna ku dul fadhiistay burburkii dalkiisa waa kala fog yihiin nin horumariyey dhaqaalaha waddankiisa iyo nin xaday balaayiintii doolar ee waddankiisa kadibna baxsaday isaga oo cararaya waa kala fog yihiin nin dawladdiisa kor u qaaday si ay uga mid noqoto 20 waddan ee adduunka ugu dhaqaalaha badan iyo nin ka dhigay dawladdiisa mid ka mida meelaha ugu halista badan dhulka oo dhan waa kala fog yihiin madaxweyne inta badan shacabkiisu taageersan yahay iyo mid dadka oo dhammi caro iyo caloolxumo u hayo Erdogan u arag sidii aad doonto balse xaqiiqso inuu ku yimid cod sanduuq lagu riday shacabkuna waxa uu awoodaa inuu Erdogan ku celiyo gurigiisa isaga oo sidii oo kale sanduuq adeegsanaya iyada oo aanay jirin bambooyin qarxa ama gantaalaha Raashiya ama maleeshiyaad Iiraaniyiin ah